hay-adda caalamiga ah ee duulista hawada IATA ayaa ku caddaysay boggeeda rasmiga ah in dadka u socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somalilan ay dalkugalka ama fiisaha ka heli karaan marka ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Arrintan ayaa waafaqsan habraaca ama shuruudaha duulimaadyada iyo socdaalka Somalilan oo rakaabka u oggolaanaya in fiisaha lagu siiyo garoomada diyaaradaha ee Somalilan sida Hargeysa iyo Berbera. IATA waa urur ay ku midaysan yihiin boqolaal shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha waxay la shaqeeyaan garoomada diyaaradaha dowladaha iyo shirkadaha duulimaadyada si loo hagaajiyo amniga xeerarka iyo isku socodka ama isku xidhka duulimaadyada caalamiga. Ururkan waxaa ku midaysan ku dhawaad 350 shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha kuwaas oo ka shaqeeya in ka badan 80% duulimaadyada adduunka. Tallaabadani waxay guul weyn u tahay Jamhuuriyadda Somalilan maadaama loo hoggaansamay habraaceeda socdaalka iyadoo muujinaysa in Somalilan si madax bannaan u maareyso arrimaheeda duulimaadka iyo socdaalka ayna leedahay awood hannaan iyo sharciyad lagu aqoonsan karo maamulkeeda socdaalka. Sidoo kale waa tilmaan cad oo qeexaysa in hay'adaha caalamiga ahi ay garowsan yihiin nidaamka socdaalka ee Somalilan iyagoo la shaqeynaya garoomada diyaaradaha ee Somalilan waa kuwo la isku halayn karo oo laga heli karo adeegyada ay u baahan yihiin diyaaraduhu. Waxaa xusid mudan in shirkadaha diyaaradaha ee yimaada Somalilan ay durtaba aqbaleen soo jeedinta hay'adda caalamiga ee duulista hawada. Geesta kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in jiraan warbixino lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaya in la jabsaday nidaamka e-fiisaha Soomaaliya taas oo keeni karta in la helo xogta ku dhawaad 35,000 oo qof oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan. Warbixinta ayaa xustay in xogaha lala baxay ay ka mid yihiin macluumaadka shakhsiyaadkii dalbaday nidaamka e-fiisaha sida sawirada, emailada, ciwaanada guryaha, goobta iyo goorta dhalashada ee qofka codsaday nidaamkan. Arrintan ayaa halis weyn gelin karta dadka la helay xogtooda shakhsiga waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay in qof kasta oo dalbaday e-fiisaha ay tahay inuu aamino suurtagalnimada in xogtiisa la helay. Fashilka ku yimid nidaamkan ayaa muujinaya in markii hore loo sameeyay in lagu fusho dana siyaasadeed oo ka caagan duulimaadyada rayidka balse aan laga fikirin waxa ka dhalan kara iyadoo fashilka nidaamkani uu yahay tallaabo guul waa muwaadiniinta reer Somalilan oo markii horeba nidaamkani ahaa isbaalo la rabay in loo dhigto balse fashilmay. Cabdicasiis Ciidid Cilmi, warbaahinta qaranka.